munaasabadan lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka iskoolka Qaarisoor ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono waxgarad dhalinyaro cuqaal xildhibaano haween iyo ardayda wax ka barata iskuulkan Qaarisoor waxaana iskuulka lagu sameeyay dayactir iyo hagaajin inta badan dadkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa codsaday in dawladda Puntland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay kordhiso fasalada iskuulkan oo ah 2 qol ayna wax ku bartaan 6 fasal oo waqtiyo kala duwan gala la diiwaan geliyo waa 9 arday oo isugu jira 6 galaas ilaa Brimo ilaa 6 guriyaha aynu haysanona waa 2 guri markii loo qaybsho ardayda 3 galaas ba hal qol bay helayaan koowaad labaad saddexaad isku galaas bay noqonayaan afraad waxa weeye waxaan marka aan codsanaynaa ama qurba joogta ahaato ama wasaaradda waxbarashada iyo dawladda Puntland ahaato ama cid kasta oo sadaqa tijaariye rabto wax ku darsanaysa waxbarashadaas inay baahiyaha noogu waaweyn ay kamid tahay guriyaha waxbarashada aan haysano halku dhiga dawladda Puntland waxa kamid ah wax qabso waxa lagu daray intii shacabku dartiisa ay waa qabsaday waa dugsigii aan ku bilaabay Ba'taaja halkaan lagu bilaabay 12 sano ka hor waxaan aad uga xumahay wali 2 qol yahay aad baan uga xumahay runtii inuusan ahaan si doonin baan insha Allah rabaa inaan goobtan ka ballan qaadno inagoo dhan waana wax runtii laga xumaado in la yiraahdo 2 qol baa 150 arday wax ku baranaysa arintaas waa arin xitaa wasaaradda waxbarashada ceeb ku aweeya waxaan codsanayaa in hawshaas wax dawladda wasaaradda waxbarashada ay si degdeg ah uga qabato hay'adaha waxbarashada taageerada waxaan ka codsanaynaa barnaamijkaas ay si weyn uga qayb qaataan reer Qaarisoor maxay diyaar leeyihiin waxa diyaar leeyihiin wax walba dhulkii agabkii waxbarashada dhagax lagu dhisi lahaa wax walba waxa la yiraahdaa xiliga hore to casriyada hore waxa lagu qiimeyn jiray qofkaas hantidu haystaa maxay u dhigantaa intee dahab ka tahay laakiin maanta waxa la yiraahdaa ka duwan tahay qofka waxa lagu cabiraa miqdaar ma yaarif wuxuu garanayo muxuu intee cilmi leeyahay qofkaas oo maanta hantida qofka maanta haystaan oo dunida la haystaa waa cilmiga marka insha Allah waxaan doonaynaa carruurtana hanti u sameeyno inaan mustaqbal u sameeyno inaan cilmi baro marka xigana de wixii waxbarashada in kor la isugu taago oo hooyooyinka hadii aanu nahay soo kabno oo midka danyaraha oo haatan isagu iska bixin waaya fiida la bixino hadii haatan la waayona oo ay fiidu nolol ku tala galay oo dadka bahda iyo dadka dibadda joogay iyo qurba joogto noogu tala galeena aanu aad ugu jira oo haystay oo ka hor istaagay inay ka hirgasho inay ka soo baxdo arday secondary ah caqabadaha waxa kamid ah dhinaca dhaqaalaha maadaama meeshii ay tahay meel tula ah oo aad u yar oo aan income lahayn waxa la dadku deegaanka waxay awoodi kari waayeen inay u helaan macallimiin tayo leh oo soo saari kara arday secondary u gudba ayay marsaa darteed waxa caqabado ku noqday in ay iskoolkii si socon waayo dhaqaalaha ayaa kamid ah hadii aan dhaqaale la helinna macallimiintii iskoolkii ma shaqeynayo hadda waxaan haynaa arday 150 ah oo sidoo uu sheegay isugu jidha class 1 ama up to class 6 isugu jirta sa aragtaana meeshan waxaanoo ka muuqda waa 2 qol waana marayn karnaa 2 qol inta ay arday qaadi karto waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka Puntland in ay si degdeg ah aan u helno dhismo si waxbarashadii ay noogu sii socoto dayaxa dusheena dadku loo tartamaya dulis bay higsanayaan inaguna dayow iyo dub socdayaan waxaan ula dan leeyahay duulaan sidaan nahay waa inaan digtoono isku duubanahay oo danyarta iyo agoomaha dugsiyada waxbarashada degdeg loogu furo oo duhurkii iyo leelkii cilmi dalacdaanin waxgaradkii iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan lagu furayay sanad dugsiyeedka iskoolka Qaarisoor ayaa sheegay in ay haystaan dhulkii iyo dhagax ayna wasaaradda waxbarashada ka codsanayaan in ay si degdeg ah wax uga qabato Maxamuud Yuusuf Caamir warbaahinta dawladda Puntland magaalada Qaarisoor.